maalintii uu guriga soo galay 10 maalmood baa ka soo wareegtay. maalintaas ayaa ugu dambeysay dibad, xataa hawada iyo cadceedda deyrka gurigiisa maalintaas ayaa ugu dambeysay. firaash ayuu dul jiifaa, kolba dhinac ayuu isku rogayaa isagoo hurdo iska baadhbaadhaya. naftiisa iyo hurdada colaad gaamurtay ayaa dhex taalla, col kala furtay ayay indhawaalaba ahaayeen. mar kastoo uu hurdo damco geyrkaasi uma galo. inkastoo uu degan yahay guri fiilaa oo qurux badan oo gudihiisa ay yaallaan wax kastoo guri qoysladan degan yihiin oo likaray, haddana isaga wax macnaha uguma fadhido oo wuxuu tabaya ayaa ka weyn. halka bannaan ayaa ka weyn haddii uu ku buuxin lahaa wax kasta oo adduunyo haysto. qaybta xasuuskaydinta maskaxdiisa ayaa kolba dhacdooyin mahadhooyin ku reebay soo horqotominaysa. waxay naftiisa ku hafinaysaa mawjado murugo iyo farxadba xambaarsan, kuwaasoo uga dhaartay in ugu yaraan dhaayihiisu in yar isku dhowaadaan. sidii qof waalan ayuu keligii fiiladan 6 qol ka kooban dhex wareegaya. kol haddii uu buuqii dadka ka soo dhex baxay, isaga iyo naftiisan kale noqoshada faraysana ay isu kale yihiin, intaas ayuu naftiisa ka dayayaa. mararka qaar in adiga iyo naftaadu isku kale noqotaan waxay leedahay faa'iido. tabta mararka qaar inaad kalinimo dareentaa xanuun u tahay. iminka qoraxdu casar gaabad ayay u hoobatay. wuxuu ka soo baxay gurigii. dalla'aan buu uga soo baxay. qorshe iyo go'aan midna ugama soo bixine maskaxdiisa unbay ku soo dhacday iska bax. wuu lugaynayaa. lugtiisu jiha cayiman ay u jeedo garan maayo. naftiisa nambadka ayuu daba socdaa. laami weyn oo dadka labada dhinacba susumayaan ayuu cagta saaray. waxaa labada dhagood ugu jira eerfoonno. isaga lugtani waxay u tahay nafisaad, si la mida sida dhegtiisu nafisaad ugu dareemayso qaraamka iyo heesaha u baxaya. intaa uu soconayo heesaha ugu kaydsan telefoonkiisa iskood iyagaa isku bedbedelaya. fanku waa nolol, noloshuna waa fan. dadka noloshooda fanku ka xariman yahay waa sida dad saxare ku nool. fanka iyo suugaantu dadka waxay wadaajisaa waayaha nolosha iyo dareenka dadnimada. waxa u baxaya magool si aan qiyaas lahayn buu ugu raaxaysanayaa laxanka iyo erayada isi saaran iyo codka dareen taabadka ee naas xaliima. waxaan ahay mid dooni badweyn kula dekaanto, waxaan ahay mid daalo dirgan waayay socodkee. allahayow dal ma aqaan, allahayow dad ma aqaan, qofuu daad wadaan ahee dawga hayga raaridin. gabalkii baa u dhacay. wuu iska socday in badan oo badan. iminka bani aadam aan isaga ahayni mari maayo waddadan. ma goor qofi socdaaba. waxa meherado laamiga koonaha kaga yaallaa midna ma furna. waxa soo dhacday dhaxan iyo dabayl aan qofna u adkaysan karin oo jawigii ka dhigtay mid baqdin leh, balse isagu dan kama laha. wuu iska lugaynayaa. naftiisa ayaa hogaaminaysa. wadoonis xooggan oo awooddiisa ka baxsan. inta uu soconayo uu tallamaya oo fakaraya. isagiyo naftiisa ayaa isla hadlaya. si aan macno lahayn waxa uu isku weydiinayaa sababta uu lugaynaya goortan. adigiyo naftaada haddii aad doonaysaan inaad isku kali ahaataan, miyaad qolkaagii hoosta ka soo xidhatid? miyaad gurigaagii iska joogtid? haddiiba aad soo baxday maqaayadaha bunka ee magaalada, mid ka mida maad intaad bun ka dalbatid keliga kursi iska fadhiisatid oo goor hore dhaxantan ka xarootid? haddii uu iskaga jawaabi karo weydiimahan, sababta uu danla'aanta isaga soo baxay buu garan lahaa. wax maskaxdiisa marba marka ka dambaysa ku soo dhacaya weydiimo qalbigiisa xaradhaamiyey. midba midda ka dambaysa ayay ka xanuun badan tahay. sidii qof furin dagaala jooga oo cadow ay ishayaan oo aan arxamayn la dagaalamaya oo rasaastu ugu socoto sida darandooriga, ayay isagana su'aaluhu ugu dhacayaan qalbigiisa. iminka qof nooc maayaa tahay? waa maxay waxa noloshaada haysta? maxaa ku haya? mooye maxay haysta? wuxuu muquurtay xasuus hore iyo noloshiisii dhalinnimo. gurigoodii 3 qof ee isagu 4 ku yahay ku wada noolaayeen. hoygii uu inanka kaliya iyo qofka ugu yarba isagu ahaa. dharaarihii dugsiga ee wiilasha la'ayniga ay soo layn jireen. maalmihii marka ay wiil istilaan haddii uu ka gacan sarreeyo, wiilkaasi ugu yeedhi jiray walaalkii. habeenadii uu la ciishoon jiray la'aanta walaal wax ka qaban karaa lana qaban kara. mar kaliya ayuu qoslay. ilbiriqsiya kadibna ilmaa tifil ka tidhi. wuxuu dib xasuustay maalin 2 wiil oo walaala ay isugu tageen oo dhinac walba ku soo dhufteen. dharaarta kolkii uu guriga ku soo noqday wuxuu hoosta ka soo xidhay qolkii uu keligii seexan jiray. duhurkii mar hooyadii u soo gashay ee kolkii ay aragtay dakharada ku yaalla ayna weydiisay cidda ay si soo dagaaleen, ayuu weydiin kale isna kaga jawaabay. waqtiga hooyadii waxa uu weydiiyey sababta uu bilaa walaalu yahay. sababta aanu haysan wiil walaalkii ah oo hel iyo gaashaan labadaba u noqda. isku mar bay qosol iyo ilmo ka soo gobbo tilindhihiisa ay kulmeen. isagoo weydiinta hooyadii aanay eedda ku lahayn uu weydiiyey ku qoslay. haddana maskaxdiisu waqti uu qosolka kaga bogto kumay simin. ilbiriqsiya gudahoodna waxay ku soo gantay xasuusta maalintii geeridii hooyadii. bil kaliya ayuunbaa laga joogaa kolkii uu waayay qofkii noloshiisa ugu muhiimsanaa, qofkii uu ugu jeclaa, qofkii uu agjooggiisa ugu farxadda badnaa. hooyadii haa way dhimatay. nabar weyn ayaa qalbigiisa gaadhay muddo kooban. inkastoo uu dhashay shakhsiyad adag, haddana si walba oo qofku u yahay qof adag, wax soo rida ayaa jira oo daciif ka dhiga.
mana jiro qof kaliya oo ka badbaada dhaawaca nafsiga oo ka soo gaadha hantaaqada huqda argagaxa naxdinta iyo murugada qof iyo qofafu jeclaa uu dunida ka waayay inkastoo maanta yahay 25 jir caqli ku filan leh oo barbaarin wanaagsan ay hooyadii ku soo tarbiyadaysay oo garaadkiisa iyo garashadiisaba ay si weyn u soo korisay haddana inuu soo koray isagoo aan lahayn carruur la nooca oo la ciyaarta lana sheekaysata dugsigana isku raacaan ma ahayn wax sahlan oo la dhayalsan karo si kastoo hadda uga soo gudbay kalinimadii carruurnimo haddana qayb weyn ayaa noloshiisa ka maqan oo si joogta u taba dareenka kalinimo ma aha mid kolla ka suulaya marar badan isagoo aan ku baraarugsanayn ayuu ku soo doogaa wuxuu dareemaa kalinimo xaddaaf isagoo tabaya kaalintii walaalnimo wuxuu niyeystaa haddii uu nolosha heli lahaa walaal iyo saaxiib waxyaabaha uu ka caawin lahaa walaalka isaguna ka caawin lahaa weli wuu lugaynayaa waa mugdi laakiin saqdhaxaya waa soo dhowaad mid ay tahay ma garan karo sidii buu isula hadlayaa isaga lugaynayaa inuu saacadda eego ayuu damcayaa haddana ilaawayaa ama awoodi waayaya baakirkii ilaa casar gaabkii kolba midh sigaara kala soo baxay ayuu xabad kale kala soo baxay wuu iska shitay xabaddii sigaar ahayd ayuu aad u nuugay sanbabada guntooda ayuu dib uga soo celiyay noloshiisa oo dhan ayuu caawa dib ugu naqtiinay 25 go'e uu jiro xasuusta maskaxdiisu wax badan ma ay dhaafin kor iyo hoos buu eegay quruxdeeda waxa aad uga badan foolxumadeeda wuxuuse maqli jiray rag iyo rafaad waa mataano dareenka kalinimada ee uu ku soo koray inuu waayay dadkii noloshiisa farxad gelin jiray oo aadka u jeclaa intuba raad ayay ku reebeen nabarrada waqtigu dhayo isaga kiisu kuma jiro kalinimada iyo murugada mugdiga iyo ciilka sida loola macaamilo ayuuse bartay dadkii uu nolosha ugu jeclaa qaar way dhinteen kuwo kale oo nolosha ku rafiiqeenna way kala hadheen may kala hadhin ee iyaga ayaa mar kaliya noloshooda ka saaray noloshiisana ka baxay haddii uu garanayo sababta qofka ay nolosha ku rafiiqeen noloshiisa uga baxay caawa su'aalahan darandooriga ah ee qalbigiisa xaradhaaminaya way kala yaraan lahaayeen naftiisan kalinimada la cishoonaysa ee ambadka ayuu nafisaad u heli lahaa dhacdooyin gaar ayay markan xasuustiisu mar kale ku hakisay naftiisa ayuu markan la hadlayaa wax badan baad nololaad leedahay qof aad rafiiqtihiin sii malaysay wax badan baad adigoo ka raystay dadka inta danaystaa ee nolosha isku keentay qof iyo laba aad walaal iyo saaxiib tihiin oo aad daacad isu tihiin sawiratay oo indhaha la sii raacday wax badan baad sheeko nolol qurux badan ku saabsan naftaada ka sii dhegaysatay isma ammaanaysid balse inta qalbi qof bini'aadama daacad yahay ayaa qalbigaaguna daacad yahay weligaa qofna kuma danaysatid si lamida sida aanad uga danaysan danaysigaba ma taqaanid waxa uu yahay iyo macnaha uu leeyahay qofka aad rafiiqtaan qiimaha ugu sarreeya ayaad siisaa danaynta ugu weyn baad tustaa naftaada ayaad la meel dhigtaa dantiisa ayaad taada ka horraysiisaa inaad naf quratiin oo wixii dhibaato idin wada taabanayso si lamida sidii wixii wanaaga idinka dhaxeeya ayaad u aragtaa haa aad haatida maxaa dadka daacadnimadu ku yartahay kalidaa ku soo beegay maxay qofafkii noloshaada soo maray danaystayaal u noqdeen maxay sida aad u qiimayso u danayso una dareento adiga kuugu qiimayn waayeen kuugu danayn waayeen kuna dareemi waayeen oo yaa ku yidhi kalidaa unbay ku soo beegan yihiin yaase kuu sheegay inaad adigu daacad tahay iyaguna aanay ahayn maxaadse ka ogtahay inaanay ku qiimayn ku danayn kuna dareemin maskaxdiisu hadal ma dayso naftiisana kama dayso kolba weydiin dhamac ka kulul inay ku gubto qalbigiisuna inuu la tahayo nabarrada istaba joogga ah kama nasto waa nin maqan naftiisa isagaa isla maqan mar kaliya ayuunbuu ku soo dhex dhacay 6 mise 7 ey dhawaaq cod sarreeya ayay mar kaliya isku wada daareen cirkaas buu booday wax waliba way kala daateen isaga iyo naftiisa iyo fikirkiisa isla maqnaa meelay isla marayeen ma garanayo saacaddu haleelka u la'aa marna uu ilaawayay ayuu fiiriyey 3 habeenimo iyo jarjar ayaa la marayaa halkaad joogtaa masaafaynta leeg baad guriga ka soo socotay jihadee buu sakaaxiga imse waddo ayaad soo geysay sidii laami kuugu soo dhiibayay isagoo ciil la liita ayuu laamiga cagta dib u soo saaray wuxuu tabayay ka maqnaa ilaa yaraantii weli way ka maqan yihiin taana xal uma helin balse waxa kaliya uu og yahay waa inuu aad u jeclaan lahaa inuu helo cid nolosha la rafiiqda